بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan doonayaa inaan arrin ka hadlo Prime Minister Xamza Cabdi Barre ayaa dhawada wuxuu ka hadlay laba casho ka hor wuxuu ka hadlay dawladii kacaankii arrintii baan doonayay bal inaan saxo waa saxaya oo kaliya waayo muusan soo marin kamana soo shaqaynin wixii dhacay wax qabadkeedina ma oga wax hadda socdana dee waxba kama qabto ogtihiin marka isagii baan doonayay inaan xoogaa u sheego مثل برايم مثل حمزة بكل احترام وحدونا إننا نكوشارو كعانكي سياسة دي أرمها دبدا أرمها جودها أرمها الدفاع أرمها النبات جليدا أرمها بلشدا أنت صورني وحين نقدر وح عاد ذلك وحوقفتي هديلك بربر لجماعة أنت واحد شرنا وكاف يكلا ديري طبعا إير أنكو قضبايو كعانكي وحب بلابي إنه أفسو إنه قر أفسومالية كمان أوفيشال كأنه كل شقة إنه عدوا البحكو قريسو والبع عرور تايرن هذا لاتي نور أمريكا جوكتي سي وحكو قران سي بينو قري خاصة بوكدي وبابسيس بوكدي صدق سنة يودلك جوجا هاي مركو كل واقع فرت الصومالي ده إن لا قرا ما أنت دولت مدحدة كتهاي تضبط كور من 16 كور وحي كل واقع أفكا سواحل إنه official yahay waa la cad oo maxaa sawaaxil inoo keenay sawaaxil baan ku hadalnaa imisa percent boqolkiiba imisa ayaa Soomaa af sawaaxil ku hadlaa wadamada jiraba waxaad ina ku biirisan wadamada la yiraahdo maartay wadamada la yiraahdo East Africa Community baad ina ku biirisan East Africa Community aad ina ku biirisan ma waxdan Soomaaliyeed ba بس واضح وضن بتقانا ضل شيء الله درينيه markii hore waxaynu sugaynay sida jaamaca Carab oo kale sida oo kale wax mutual agreement la isku yahay oo wax la wada leeyahay oo sharciga loo siman yahay oo khayraadka si la isku dhaafsanayo ama markii hore saasan aaminsanaa laakiin hadda waxa soo baxay madaxweynuhu wuxuu saxeexay heshiiska November tan hadda aan ku jiro 2023 maalinta 24 waa 2 sano iyo 2 casho 2 sano iyo 3 casho meel ama 4 casho iska dhig baa mantaqana laga joogaa oo Kampala ku saxeexay maalintii uu saxeexay heshiiska 4 maalmood kadib maxaa dhacay 24 November baa la saxeexay 28 maxaa dhacay waxa dhacay ninka generalka ka gudoomiyaha London maartay East Africa Community way madaxweyne isu xishiilan doonta laakiin hadda waxay noqdeen waxay yihiin waa German kaas 4 casho kadib wuxuu joogay Imaaraadka wuxuu la saxeexday heshiis waa la saxeexday muwaadin for understanding heshiis afgarad buu la saxeexday Imaaraadka waa isaga Imaaraadka maxaa la saxeexanayaa waxa la saxeexanayaa khayraadka badda Soomaaliya ku jira inaad noo baadhaan oo ma yahay iska leh adduunka oo dhan baa yaabay Soomaalidu waxay tiraa naba dhalan dhawrtaysan oga war 4 maalmood baynu ku jiray haddana khayraadka badda kalluunka shidaalka macdanta everything wax badda ku jiro dhan Soomaaliya kaalay noo baadhu leeyahay Imaaraadka halkaas ay ka soo galeen kacaankuna xilligiisii marka id barbar dhigo kacaankuna xilligiisii siyad baralaw dhaxrasuu hogaaminayay waxa lagu riday shidaalka Soomaaliya raqiis nooga dhig isna wuxuu yiri 51% Soomaali baa leh shacabkaas baa leh 49% na qoladina soo saaraysaa waa uniform haddaad ku qaadanaysaa ku qaata haddaad ku qaadan iska taga maanta maxay maraysaa waxa idinka horeeyay tan maanta la soo gaar waxa idinka horeeyay Soomaa Oil and Gas oo Xasan Termuunkiisi uu saxay 90% buu saxay إنكم ما يناشين صحافة مريكا يا شيختي عمر ما شيختي إذا ملور بجلسوا تري 90% شدالك الصومالية كجرة صوما أويل أنجاس بسكلي يا هاي العدالة وأوباما عمر كان مدحوناها حزب الديمقراطية وديفر كاميرون عمر كان برايم مينستر كإنجليز كها حزب توريكا أما كونسرتيفيكا إيوه من راشي أنا بليونير أو متقال اسكندر أو ليش خيني إن أي كدر صدام سيو مالجلي واي دولة هذا كم صار نقول كره حاجة مالجلي أنت
آخر والله ديالنا سومويا القاس بيسميان حسب مركي لسميني لندن بوجوجي مركي هرب قرده لوجي 23 ابريل 2013 مركي xigay waxa looga yeeray mataqaana April 24 waxa looga yeeray meesha la yiraahdo baashi loo dhan jiray Ireland G7 ka shirayay kale ka soo qayb gal baa la yiri G7 ki markii la isu yimi islaantii haysan jirtay Jarmalka Chancellor ka ahayd iyo madaxweynihii Faransiiska ee xilligaas baa yiraahdeen oo baxaa Soomaaliya G7 oo kaligeeda G20 bal xitaab G20 inaba tagina oo G7 maxay yimaadeen nimanka waxa doonayeen xasan inay aqliga ka xadaan waxay ka baqayeen inuu diido waxay islahaayeen xasan waa nin xamar ka soo jeeda xamar idinka burburiyay Itoobiya baa u dirteen dhulka la dhigay waxay ka dhacdhacsanaa nimankaas waa Obama iyo David Cameron moogta waxa ka dhacdhacsanaa xasan ma ogolaan doono inkastoo in yar ka hor January 17kii uu aqalka cad uu kula kulmay Obama oo ay wada hadleen markaa isafgarad sameeyeen dibadna xagga la isla aaday oo xagga wixii lagu sameeyo Ingiriiska wixii sameeyeen barkay isaga gumeystay hay waa markaas waa barka leena galanay jirto samanka oo yeena galay dawladda Soomaaliya mise Prime Minister mal xilliga siyaad markaa wax dhacayeen inta lagu yeero safarta lagu yeero mar meel loo dhaay wax loo saxiix man loo saxiix marka sidaas ba shidaalka dalkana 90% ayna nu lahayn ma aynu leeyahay dawladda idinka dambeysay baa wax sameysay bal fiiriya idinka horeysay idinka horeysay xil kala wareegteen farmaajo 2018 kii buu baydhabo isugu keenay maamulada iyo qoladii oo dhan maartay wixii isla magac bay leeyihiin maamuladii Prime Minister ku xigeenayay madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanku ay isugu tageen waxay sameeyeen maxaanu sameeynaa sharing maartay khayraadka si loo qaybsanayo baan sameeynaa maxay sameeyeen waxay yiraahdeen 25% ama 4 mile oo badda loo aado oo badda loo aado maamulada bixin kara kontraada wixii 4 ka bilaabna ilaa 200 gaarayana dawladda federaalka bixinaysa wax darabta siinaysa 200 iyo 300 iyo kontona waynu bixin karaa adduunkuna waa bixin karaa waa meesha EEZ-ka la yiraahdo soo ma garan marka timaadeen waad bedesheen maamulada maanta wax miyay bixiyaan maamuladii waa kuwa la eriyay oo dagaal ku qaadeen kuwa aad ka joojisay mataqaana maxaan idhahayto inay doorasho qabsadaan waa galmudug iyo Hirshabelle iyo Baydhabo ama Koonfur Galbeed sharci maanta kuma joogaan waxay bixiyaan iska saxaana valid ma bahaba oo valid ma noqonayo valid ma noqonayo marka waxa way khalqalkaas baad abuurteenba wa khayraadka inakana Soomaaliya Yemen iyo Suudaan waxa loo baabiiyay khayraadka ay leeyahay ama shidaalka ay leeyahay baa loo baabiiyay way Axmed Zaki al-Yamani wasiirkii petroolka kii maxaa tahay Saudi Arabia baa inoo sheegay markuu noolaa oo yiri markii la eriyay London tagay oo 5kii xilka laga qaaday buu sheegay yiri saddexda dal shidaalkooda waxa la halaha kiyo shirkadaha Mareykankuna ha baxaan Mareykankuna Saudi Arabia ha bixiso 350 milyan oo baaristii ay baadheena hal la siiyo tibaanu weli ku soconaa marka Masar Prime Minister meeshan aad leedahay dawladda way gaardinayeen waa runta ardaydan waa gaardin jiray gaardigu dacama ogow waan gaardin jiray laakiin dalka innaka iska lahayn siyaasadda arrimaha dibadda ka soo qabo Security Council ka xilliga siyaad mar baynu galay maalintan Jarmal ka noqonay imis afar dal oo Afrika ah mataqaana xornimadoodii baartay miiska la soo saaray Nelson maxaan dhahay Nelson ay maartay madaxweynuhu horeeyay muxuu ahaa South Africa Nelson isagana in la sii daayo waa meeshii safaaraddeenu safiirkeenu Cabdiraxmaan Caawin Faarax waa meeshuu uu ku saxaxay Security Council-ka ninka in la sii daayo oo mataqaana waa meeshay ka timi sidayntiisa iyo dawladaha xornimadooda idinka maanta xagee wax ka maraya Itoobiya nu galay 77 ilaa harar baynu soconay dawladaha waaweyn bayna ka soo saaray ina ka eexdeen ina ka soo saaray markay ina ka soo saareen maanta idinku ma xasbeenaysaan Itoobiyaanki waxay leeyihiin badda Soomaaliya qabsanayna haye wadaamsantiin kiilkii shanaad ama martay DDS-kii ay dhulkii Soomaalidu ay deganeed aynu 77 dawladda Saad Barre ay xoreysay in badan baa maanta la qabsaday 5 iyo 30 magaalo ayaa la qabsaday xog baa lagu qabsaday
maanta jigjiga waxay u soo jiraan ma taqaanaa 5 kilomitir jooga ay yiraahdeen halka jooga bal inta wax ka dhamaanayaan abiiba yiraahdo halka iska jooga u muuqda waa lagu cabsi gelinaya qolada joogta jigjiga lagu cabsi gelinaya haye idinku maxaa samaysay taa bedelkeedii waxaa tiraahdeen ogaadeenya iyo NFD Soomaali ma dastuurkaas ka saarteen oo way yeydu ku qasbay meeqa qaadateen bas Prime Minister gobjoog baad ahayd meesha afarta chapter ee beelaha xasan la wareegaya aad ku ansixiseen maxad mataqaana maxaa qaadatay waad ka saartay waxaa tirahdeen Soomaaliya waxaa Hargeysa xamar labada figure 7 kaas wixii Soomaali ay dhibaan u sameynayna cid ahayna Soomaali maaha oo way ku wari maxay Djibouti maxay tahay calanka shanta gees leh xiddigta shanta gees leh shanta Soomaaliyeed bay u taalaa taariikhdaas bay Soomaaliya leedahay idinku maamulkaad wasaaradda aad ka tahay wasiirka Prime Minister aad u tahay waxay go'aamiyeen xiddigta waxaan sugaynaa goorta xiddigtii laba ka soo reebisaan ama calanka xiddigtaba ka tuuraysaan intaas Masar Prime Minister aan sugaynaa hadda أوريني دوادي يوم بات أحمد مدولا إذا كعرري مركو أركي ومرضى بو حوجادي وإذا كعرري إذا كانوا أنت مركي رواكد باتكتي أديك سجل كسودي رواكد باتكتي حسن يسي شو بقول عيد راجس حاجة كده بين كي حدود ده سكنيبه تاريخ المرد عند الأفريقيا نوع عاسة وعيد الناس كيسيلان ده قال ما يا ساس عيد الشيء يسجل ولا تاريخ ما يدعن وحيابها الدولة عاد سميسي عددون بضحة كتاهي صدح يتمد وابتري معدر فانتر استاندق عم هشيس الصفكرة شو بعد دولة دادو قشي حل كلية برلمان كلي وقي تركيا كيسي انت كلم حل وقي ويمو قلانا يو كله قد بحسبين يا ده شيء وش خيرين مصر برايم ميسر شيء ايوب تقانا ايوب دانينا يا سيد الشدال كي حق اللوغو ورجي يمتقانا نمكي حق ايولو ورجين واحدة ما يقولون لك سمينا ما بجرنا وحنا سوقنا كارتة الصومالية ما قاعد يعلق قرت اللي بدله نسوقنا أوريد سكريبتي واسع على حتى وحنا يسنا البرلمان كشرع لنا الصحية عيدا إن الله درو دولتها إمارات إيست أفريقيا كوميونيتي وهذا إنه كجر ما بقى لك الرئة منك الصومالي باسبر وتا ما قال لك تضرب دلك في زلان ما قال لك وحنا ما لنا رواندو ما أقول كليا لكن أنت كلت ما أقوله وإنه فيزا قاطع الله كقاطع وواي إنه ما بروقنا إياكم حيو إيمانيا فيزا لان حيو إيمانيا إياكم حي فيزا لان يسوق السعودان سو ما هين إن الله يسوق السعودان أو وحلا يسوي دارس سو ما هين هل كان نجد جوجا أرجع حساب جوجا توصل يري بدحينا دولة كينيا وصلت تري مركي أشياء ليبيا صوماليا وين فيزا كوي ما دقف الأوروبية وفيزا الغير جوجا وينو هذا ويات بعض قلاتين قاد كودين هلك كان برلمان كأنسي حسين وبرلمان كود سون جوجيا بعد ما الدولة السياد برهلا ونحرسته قاد كي وين جوجيس وين اللي دقالة مجرتي منك قاد كلا دقالة مجرت جاء عقولا حتى بس بوجو سو ويل ويرتا قال أنا تلا نصيبها قاد كساس سياد برهلا دقالة إذا كم بدحويني يمامل كيبا شهر كوله وبرلمان كيبا أسيحيي ورد حكينا وسعنا مصر برايم نصر حكينا وسعنا ما بترك الربا هذا نروان ترين إن واحد كعان كم وقت عفماتك إياه وحبرشة بلاش بيهاين أيانو حارك وزيرك عداوة وقولها يا حقنا قبل يدين وتسابر كم حاجة شيء كيسا أيانو حارك هذا وزيرك متقانا وزير الدولة قاشانيك وقولها يا بقارة حمر وحاهم قادين كرا عيدك الدولة يا شباب ما ناس ما يسويري بل بيكون جرتا ودولة ما شباب هذا بس البرنامج لسه دولة ما شباب بس يدير كلينيسا سيا وحسوا على واحد وزير دمبايري وزير دولة دمبايري هبل أعتقد وهذا شركة صار فديا وما حلك هو قاعد ويدي هذا أخذ ساسين ما حلك هو قاعد ويدي كلا شعبكم حقوا حنوق ملا ما حلك هو قاعد ويدي so many things هو حاسم ما حلك هو قاعد ويدي ما حمرك وحكي شاقسة تنابو وحبها كشاق المركع وحبها كشاق متقانا دولة سياد بري وحيها الدولة أدون كنا الليابي أدون كنا الليابي إذا كأوح حق بدا أفريقيا دلال بي حريسي إنك أنا كأني بعد بحسين تبحى شايك الرهو بكو دالينا انت هكا بدن waa dambaan u gaaray dooda badan inta ilmaagayno sababtoo ah xitaa ma garanaysaanba waxa kan waa xamada shishay inuu dabada ka riix dawladda inuu shay u shaqeynayso baa la aaminsanaya
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.